بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa maalin kale oo weyn oo taariikhda Soomaaliyada cusub ee dimuqraadiga ah meel weyn ka geli doonta hadii aan leeyahay maanta waa maalin ay soo dhamaadeen muddo dheer oo cabsi badan ay socotay oo la cabsanayay xagee loo socdaa xagee laga socdaa aan la kala garanaynin mudanayaal marwooyin haddii aan wax yar dib u milicsano xaaladda aan ka soo badbaadnay ee dalkeenna iyo muhiimadda ay leedahay munaasabadda maanta dalkani mushkiladiisu kuma koobneen oo kaliya hay'adihii federaaliga ahaa oo mandatekeedu dhammaaday laakiin waxa uu la jirtay kala qaybsanaan hay'adaha iyagoo mandatekoodu dhammaaday ay kala qaybsameen sida baarlamaanka dawladaha nidaamka federaalka ee dalka oo lafsidiisa kala qaybsamay iyo ugu dambeyntii ciidamada qalabka sida mushkiladahaas oo dhan marka xaalad waxay keentay dalka in aanu ku sii sugnaa karin meeshii muddooyinkan dambe uu ku sugnaa oo loo baahan yahay in hore loo socdo hore loo dhaqaajiyo si ay u xallismaan mashaakilaadkaas oo dhan loona helo waxa looga gudbayo oo mar walba ah heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah oo dadka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo mustawa kasta ay leeyihiin ay raalli ka ahaayeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo intii dadaalkaas ka soo qayb gashay oo dhan muxuu ahaay madaxweynaha uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha dawlad goboleedyada mas'uuliyiinta golaha midowga murashaxiinta oo intaa ayaguna cod dheer ku kabaya mar walba waxa ay u baahan tahay Soomaaliyada cusub ee dimuqraadiga ah waxaan goobjoog ka soo ahayn waayihii dambe wixii dhacay oo dhan heshiis kasta inkasta oo aan inaan ka qayb galno aan jeclayn haddana heshiis kasta oo la gaaro oo ku saabsan doorashooyinka midowga murashaxiintu waxay u taagnaayeen taageeradiisa maalin walba warqad ay soo saarayeen ujeedaduna ma ahayn inay heshiisyadaasi ama qayb ka ahaayeen ama qodobada ku yeel in badan oo ka mid ah xataa ay raalli ka ahayn ama ku faraxsanaayeen laakiin dalka inuu hor u socdo oo ay aaminsanaayeen berri inay maanta ka sii fiicnaan doonto oo la gaari doono berri qurux badan oo maanta ka fiican dhammaan muxuu ahay dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno maanta meesha la jooga intaas mabaadidaas iyo taageeradeenna iyo xuduurkeenna joogitaankeenna midowga murashaxiintu wuxuu ku salaysan yahay taageeradaas soo jireenka ahayd ee weligeedba aan la garab taagnin isku dayadii hore ee la soo sameeyey tanna aan la garab taagnin kasokow inaan cabirno ra'yigeenna iyo wixii saxda nala ahaa ee Soomaalida casriga ah ee dimuqraadiga ah ay u baahneed meesha aan taaganahay maanta micnaheeda ma aha wax kasta inay dhammaadeen laakiin waxaan leeyahay maanta meesha aan taaganahay micnaheedu wuxuu yahay wax kasta waa bilow albaabkii ayaa la furay wadadii la mari lahaa ayaa la feeday in la qaado wadadii oo la mara kama dhib yara albaabka maanta la furay sidii loo furi lahaa wadadii dheereed iyo dadaalkii loo soo maray walaalayaal waxaa iga xasuusin ah in aan qofna laga tegin hayaankaas wadadaas la maraayo qof kasta waa noo muhiim qofna quursi ma galo saddexdaas shay inaan qofna laga tegin qof walbana uu muhiim noo yahay qof liita iyo qof la quursanayaan aanu jirin waa midda kaliya ee meel sanna geynayso waayihii la soo dhaafayna in badan oo kamida waa ku caanan baanlay waxa kaliya ee aan u baahannahay waxay tahay isqadarin isu turid iyo dulqaad loo sameeyo kuweenna gaabinaya waana ku soo caanan baanlay inaan sidaa yeelno muddooyinkii la soo dhaafay ee dhan oo aan ku soo jirnay safarka ugu dambeyntii waxaan ku soo gunaanadayaa hadal jeedintaytan kooban dhaxalka kaliya ee aan uga tegi karno jiilasha soo socda ee Soomaaliyada dimuqraadiga ah ma aha ama inuusan ahayn si haysiga kursiga ama talada markaas aan joogna mustawa kasto aan leenahay ma aha midda ugu sarreysa kaliya laakiin mid kasta mas'uuliyadda la isu dhiibo ee xilliyaysan
inaan sii haysanno ma aha muhiimadda ugu weyn waxa ugu weyn ee ay tahay inaan muxuu ahay sooyaalka siyaasad wanaagsan inaan dalka jiilasha soo socda inaan uga tagno waa sooyaalka siyaasad wanaagsan oo loo aayo inaan u abuurno u dhisno aasaaskeedii u taagno ugana tagno waxaa tusaale aad iyo aad muhiim u ah oo aan xusuusanno mar walba dibna u imanna ah tii uu noogaga tegey allah u naxariistee madaxweynihii ugu horreeyey soomaaliya oo xor ah mudane aadan cabdulle cismaan waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado maanta guul iyo farxad iyo ku naalooshaan joognaa waa il oo kale guusheenna maanta ishuna waxay u baahan tahay in saxarka si aadoo aada looga ilaaliyo guusha maanta aan joogno waxaa suurtagal ah hal kelmad oo qof mas-uula uu yidhi inay wax badan ka bi'do waxaana suurtagal ah hal kelmad oo qof kaloo mas-uula yidhi inay gaarsiiso meesha aan la jecelnahay ama aan la hiigsanayno aad iyo aad ayaan u rajo fiicannahay aad iyo aad ayaa kalsoonida maanta taaganna ee u dhan tahay wixii la soo maray waaye aragnimo iyo khibrad noogu filan waxaan u soconno ayaa nooga muhiimsan ayadana kuma rajo xumin waa ku rajo weynaa aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu